لتلي هوري الديمقراطية هي حقوق آدنها وزارة arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Xamse Warfaa ayaa magaalada Nairobi waxa uu kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed. Xamse Warfaa ayaa sidoo kale halkaa ku soo bandhigay buugga hogaamiyaha isbeddelka oo qoraya kaasoo xambaarsan micno weyn oo faa'iido u leh dhalinyarada. buuggan oo lagu magacaabo The Transformation Leader ayaa iftiiminaya sida loogu baahan yahay jiil cusub, hogaamiye cusub oo leh markaasi rajo cusub. waxa uu sidoo kale buuggan uu soo koobayaa qiimaha hogaamiyaha wanaagsan ayadoo sidoo kale buugga ay ku xusan tahay taariikhda Xamse Warfaa. Xamse Warfaa ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi u sharaxay sida ay muhiim u tahay in la helo shakhsi wax badan ka fahansan hogaaminta bulshada. munaasabadda uu jaaliyadda uu kula hadlayay sidoo kalena uu buugga uu ku soo bandhigay Xamse Warfaa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday Soomaaliya, Kenya ay ugu horeeyaan xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya iyo waliba xildhibaan Mursal Khalif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale munaasabadda waxaa goobjooga safiirka Soomaaliya Kenya Ambassador Jibriil Ibraahim Cabdulle, diblomaasiyiin, aqoonyahan, dhalinyaro iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. madaxda ka soo qayb gashay munaasabadda oo ugu horeeyay safiirka Soomaaliya Kenya iyo xildhibaan Maxamed Caddo oo ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqaya inay ka faa'iideystaan buuggan. sidoo kale waxay u mahadceliyeen Xamse Warfaa oo ay sheegeen inuu Soomaalida ku matalo fagaarayaasha caalamka. buuggan sideedaba waa aqoon maamul iyo taariikh nololeed isku jira oo runtii taariikhdii uu soo maray walaalkeen Xamse Warfaa iyo ka hadlaya khibradii hogaaminta waxa uu ka bartay. annagu Soomaali haddaan nahay ama aan Soomaaliya joogno ama aan Kenya joogno hoggaanka in cilmi la barto uu yahay uma aragno, laakiin sida qofka inuu dhakhtar noqdo ama injineer noqdo oo kale loo barto ayaa hoggaanka laftiisa uu cilmi u yahay, ayadoo hibo uu qofku Ilaahay u siiyo ama gift ay marmar noqoto, laakiin haddana cilmi inuu qofka u barto oo u darso oo casharada waxa khaldama laga barto. xafladan caawa aan ku soo bandhigayna buuggaas oo dhabtii ah mid qiimo weyn xambaarsan oo walaalkay Xamse Warfaa ku soo bandhigayo khibradiisa uu u leeyahay hogaaminta. hogaamiyaashu waa badan yihiin, madaxdana aan wanaajisanno, hogaamiyaashana aan wanaajisanno. inta awoodana buuggaas waxaan ku talinayaa inay akhriyaan. aad iyo aad u soo dhaweynayaa marti sharaftana la joogta oo ay xishmad iyo sharaf iyo karaama ay noo tahay inaan idinku soo dhaweyno deegaanka Soomaaliyeed ee Islii. soo dhawaada ugu horeeyo Xamse Warfaa oo daafka adduunyada ee Mareykanka nooga yimid oo na soo booqday. ku soo dhawaabaan ku leeyahay xilliga ugu fiicnaa ee la sameyn lahaa ayuu sameeyay. saddex qodob aan rabaa inaan yara taabto oo Xamse uga hadlay, idinkana aan kula talinayo in aad u akhrisaan oo Soomaalida ka maqan. wuxuu ka hadlay waxa la yiraahdo integrity-ga amba kalsoonida iyo muhiimadda ay leedahay qofka inuu yahay qof damiir leh, sharaf leh, ciz leh oo la aamin karo noqdo. marka hoggaanka Soomaaliga ah in la helo qofkaas waa muhiim. haddaad doonto noqo ka shaqeeyo warshad, haddaad doonto ganacsi noqo, sababay u tahay. qodobka labaad oo aan isleeyahay muhiimaddu qaadaha ka taabtay walaalkay Xamse waxa uu yahay waxa la yiraahdo empathy-ga oo ah qofka Soomaaliga ama qofku waa inuu wax ka bedelo hadduu rabo waa inuu dareemaa qof kale dareenkiisa. hadduu taas samaynin meel uu gaari kara ma laha. qodobka saddexaadna waxa ay tahay waxa la impact-ga qofka inuu wax ku yeesho ina saameyn yeelato. marka waxaan ku talinayaa dhammaan dhalinyarada caawa joogta kuwana daawanayo buuggan wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah, xilli muhiim ah, xilli ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan nooc kasta ay ku jiraan noloshooda ay raadinayaan dareen hogaamineed. qofkii raba marka dhalinyarada ah dadkiina daada yar caawa jooga taariikhda quruxda badan leh ee xanuunka badan leh marka u fiiriso uu soo maray walaalkeen uu u qoray uu habeeyay wuxuu noo hadiyay wax uu ka tago. gabagabada munaasabadda ayaa la taliyay hore ee dimuqraadiyadda iyo xaquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Xamse Warfaa waxa uu sharaxay sababihii ku kallifay inuu buuggan qoro ka oo lagu magacaabo The Transformation Leader.
sidoo kale waxa uu sheegay in jiilasha soo socda loo diyaariyo fursado ka duwan kuwii hore sidoo kale waxa uu ka hadlay markaasi sida ay muhiim u tahay in laga qayb qaato isbeddelka hogaamineed midda ugu horeysa waxa weeyaan anoo shakhsi ah ayaa xafladan ka soo qayb galay marka dawlad iyo hay'ad ma matalo anaa jeclaystay dadkayga Soomaaliyeed oo aad u jecelahay inaan kala soo qayb galo u imaado meelo badan oo Djibouti ay kamid tahay maaragtay deegaamada kale ee dhulka Soomaalida ah inaan tago aan soo arko wada tashi iyo fikir kaliya aan xaggayga ka soconin iyakana ka socdaan inaan wada yeelano marka waxaan idin sheegayaa laba story ama laba sheeko kooban oo arinta hoggaanka aan wadan leeyahay laakiin afeefteeda labaad baan haddana ku xijinayaa oo ah markaan hoggaan isbedel doonaan dhahno macnaheedu ma aha dhaliil hoggaan hadda joogo la dhaliilaya ma aha hoggaankeena marka laga hadlayo dhibaatadayna haysata ta koowaad waxa weeyaan talada inaga dhaxaysa ee hoggaanka ah inaynu wadaagno oo aynu dhexna soo dhigano haddaynu taa samayn lahaynna dalku inagama burbureen gaar ahaan dadka Soomaaliya aan la hadlayaa geeska Afrika oo dhan caqabadahan jira maynan la kulanayn marka waxa laga maarmaan ah in aynu markaynu hoggaanka ka hadlino aanan ahayn kaliya dhanka siyaasadda waliba sida xildhibaan Cadow kormaray bad qof kasta maanta inaad halkan timaado go'aan hoggaanimo ahayd in aad ganacsi furato waa arin hoggaan ku saabsan marka kelmadda hoggaan waa mid ka ballaaran nidaamka dawliga bas laakiin ta dawliga ah baa ugu muhiimsan sheekada labaad waxaa jiray waxaan ka fikirayaa sidii aan magaalooyinka u sheegin anayadan u sheegi lahaa waxaa jiray niman marti ah yaa magaalo hoteelku ku yaray ayay yimaadeen niman ajaanib oo cadaan oo dibadda ka yimid marka way yimaadeen waxay dhaheen meel masaajid meel aan ku tukano meel aan seexano hoteelana sii wuxuu yiri meel ma jirto laakiin aan idin soo noqday lacagtii buu ka qaatay wuxuu yiri halkaas oo maaragt iska seexda salaad subax markii la gaaro nin qaylinaya idin imanaya iska ka sii dareera markuu ninkaas yimaado lacagtina waa ka qaatay meesha uu tilmaamay in meel masaajid weeye sheekada sababtan u sheegay waxa weeyaan adduunweynaha xukuumaddanadii iyo xukuumadda hadda joogta iyo xukuumadaha kale ee reer galbeedka runtii qaarkood aynu aad ugu xirannahay meelo badan waxa khaatu billaahi laga taagan yahay in la helo hoggaan la aamino oo runtii matalaya ka turjumaya waxa diinteena islaamka asaaska u ah oo ah qofku inuu shaqada uu qabanayo isagoo dad u adeegaya mas'uuliyadu sideedaba waa adeeg loo adeegayo bulshada weeye inuu qofku isagu ka faa'iido ma aha inuu isagu ka ganacsada ma aha marka maadaama adduunka 80kii sano la soo dhaafay isbedel ka duwan hadda ay noo socoto waxa laga maarmaan ah inaynu hoggaankeena ku saleyno mid ka turjumaya baahida dadka Maxamed Tolman Universal TV Nairobi